السلام عليكم سو dhawaada asxaabta diyaaraddu waxa lagu tiriyaa meelaha inta badan ama aaladaha inta badan lagu kala safro dadkuna waxa ay u noqotay mid muhiim u ah safarkooda maadaama safarkoodu ay ka dhigayso mid aad u sahlan laakiin dadka qaar waa kuwa aad uga cabsada marka ay raacayaan diyaaraduhu waxaase ognahay hal dhib oo qabsada diyaaradda in ay halaagayso dadka diyaaradda saaran oo idil wayse jiraan inay dadka badbaadeen balse qisadeena cabsida leh ayaa ah diyaarad saqafkeedii weyday iyadoo dhulka u jirta fogaandan 7500 oo mitir laakiin daawade waxaan ku xasuusinayaa intaan muuqaalka gudaha u galin inaad muuqaalka like saarto waad ku mahadsan tahay la socodkaaga سيدي لواتنكي أبريل كن سجال بقول سيدتن يا سيدي ديارد مجعدو يا هاي بوين تضو بقول صدني تضو أيا كسر دقائق جزيرة هيلو يضو أسعة جزيرة جنالو وحين كويا لن لود جزيرة مقالة هاواي ديارد وحى إسكاله شركة الله إنصاص صارت ديارد وحى إسكو ديارين إساس فركا لكن مجرو قف إن يبيع دونتو عرنت لياب كله halka safarka labada jasiiradoodna uu qaadanayo muddo 35 daqiiqo ah hadda diyaaraduhu waxay isku diyaarinayaan safarada maanta halka maamulka airport-kuna uu isku diyaarinayo inay fasax siiyaan diyaaradaha dalabka weydiisanaya ee raba inay soo galaan airport-ka sidoo kalena fasaxaya kuwa ka kicitimaya airport-ka diyaaraddu waxa wadaha koowaad ah nin xariif ku ah wadida diyaaradaha Robert Shaw Neymar oo da'diisu tahay 44 jir isagoo shirkadda u shaqeynayay muddo 12 sano waxa uu jiray ama hawada uu ku jiray in ka badan 8000 oo saacadood 6700 oo saacadood oo kamid ah waxa uu wada ka ahaa diyaaradda Boeing 737 wadaha labaad ee diyaaradduna waa Madlina Lomcase taasi oo da'deedu tahay 34 jir waxay shirkaddu u shaqeynayay muddo 9 sano waxayna 8000 oo saacadood ahayd wadaha koowaad ama wadaha labaad ee diyaarad taasi oo kamid ah 3500 oo saacadood oo ahayd wadaha koowaad ee diyaaradda Boeing 773 sidoo kale diyaaradda waxa saarnaa 3 kale oo shaqaale ah kuwa uu ka dhex shaqeynaya diyaaradda gudaheeda markii ay diyaaraddu hawada ku jirtay muddo 23 daqiiqo ah ayay dadku maqleen hal mar cod argagax leh taasi oo cabsi gelisay dadka saarnaa diyaaradda oo idil taasi oo noqotay in qayb kamid ah saqafka diyaaradda uu fuqmay waxayna noqotay meel banaan oo saqaf la'aan ah xawaaraha diyaaradda ayaana aad u sii siyaadayay laakiin nasiib wanaag dadka ayaa ahaa kuwa meeshooda ku sugnaa oo aan argagixin isla markaana ay madax la galeen kuraasta hoostooda wadaha diyaaradda ayaa ka codsaday dadka inay xirtaan qalabka neefta ee ku xiran kursiga korkiisa dadka ayaana aad u cabsanayay maxaa dhacay intaa kadib shaqaalaha diyaaradda ayaa isku dayay inay dejiyaan rakaabka diyaaradda laakiin taasi waxba ma aysan ka faa'iidin maxaa yeelay waxay aaminsanaayeen inay tahay dhamaadka noloshooda intaa kadib diyaaradda xilliga waxa ay u jirtay 10 daqiiqo madaarka ganaalo ayadoo wadaha diyaaradda uu message u diray maktabka soo dhaweynta garoonka isagoo uu sheegay inay u saamaxaan soo gelida airport-ka waxa loo idmay inuu soo dego laakiin waqtiga wadaha diyaaradda waxa uu ka warhelay nalka jaalaha oo aad u garaacmaya taasi oo cadeynaysa inay jirto cilad hoose oo dhanka matoorka ah wadaha diyaaraddu waxa uu bilaabay inuu yareeyo xawaaraha diyaaradda ilaa ay noqotay 300 oo kiiloomitir per hour sida ayuuna u soo yareynayay ilaa uu soo dhawaaday garoonka aakhirkiina wadaha diyaaradda ayaa u bagac dhigay garoonka iyadoo aanan dhicin wax dhib ah isla markaana diyaaraddu ay noqotay mid miisaaman laakiin dadkii ku sugnaa airport-ka ayay la noqotay la yaab markii ay arkeen diyaarad saqaf la'aan ah laakiin 56 kamid ah rakaabka diyaaradda ayaa haleelay xanuuno halka kuwa kale ay noqdeen kuwa caafimaad qaba dhibaataduna intaa kuma aysan ekayn subaxa garoonku ma aysan joogin wax gaari ambalaas ah taasi oo sababtay in dadka xanuunsan lagu qaado gawaarida xamuulka ay qaada alaabta diyaaradaha markii ay ka soo wareegtay hal sano waxa soo baxday war cad oo sheegaya sababta kaliftay in diyaaraddu saqaf la'aan ay noqoto iyadoo hawada ku jirta shirkadda lahayd diyaaraddu waxay cadeysay in shaqaalaha diyaaradda aysan kontaroolin saqafka diyaaradda muddo bilooyin ah
iyagoo og inay shaqaynayday in ka badan 20 sano. sidoo kale waxaa halkaa kansal looga dhigay matoorka diyaaradda, waxaana shardi looga dhigay in la bedelo matoorka iyo saqafka diyaaraddaba. laakiin arrinta farxadda leh ayaa ah in dhacdada uusan ku dhiman hal ruux, halka diyaaradda mamnuuc laga dhigay inay hawada gasho mar kale iyadoo aysan hubin waaxda maamulka magaalada Hawaii. sidoo kale waxaa shirkadda amar lagu siiyey inay wada hubiso diyaaradaha kale ayna joojiso kuwa waqtigoodu u dhammaaday si aysan khatar ugu noqon nolosha dadka ku safraya. sidoo kale waxaa muhiim ah in la ammaano dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya diyaaradda una shaqeeya si dadka si sahlan oo ammaan leh ugu safraan diyaaradaha. sidoo kale wadaha diyaaradda Roberto George ayaa helay mahadcelin fara badan maadaama uu noqday geesi, maxaa yeelay waxa uu awood u yeeshay inuu xakameeyo diyaaradda, dejiyana rakaabka oo ay naftu ka sii siqaysay, iyo inuu cagaha u dhigay diyaarad ku jirtay hawada iyadoo saqaf la'aan ah, iyadoo aan laga diiwaangelin dhacdada halkiis oo geeri ah. dhacdadan ayaa ka mid noqotay kuwa ugu yaabka badan ee laga diiwaangeliyay dhacdooyinka diyaaradaha. sidoo kale waxaa la yaab noqotay in diyaarad ku jirtay hawada iyadoo oo saqaf la'aan ah ay dhulka timaado iyadoo aan laga diiwaangelin halkiis oo geeri ah. waa Allah mahadi. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan inoo like garay kadibna la wadaag walaalahaaga. mahadsanid.